بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo socdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeena kulana YouTube ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadeena idinku soo maqana waxa kamid noqonaya dagaalka culus ee u dhaxeeya Soomaali galbeed iyo sidoo kale Al-Shabaab ayaa sii xoogeystay oo karaar qaatay waxaa la soo warinayaa khasaarooyin xadbeel ah wararkii ugu dambeeyay ayaa daawadayaal daawan doontaan Ethiopia ma ka talin doontaa Baydhabo iyo sidoo kale balad weyne warbixin ayaan daawadayaal idinkaga diyaarinay barnaamijkeena ayaana ku gorfeen doonaa Mareykanka iyo Turkigana waxa ay cambaareeyeen dagaalada halkaas iyo sidoo kale weeraro ka dhacay marka iyo afgooye waxa ay ka yiraahdeen ayaa barnaamijkeena daawadayaal idinku soo gudbi doona oo aan idinku qaadaan dhigi doona maalinta markaasiba waxa jaajuuskii ugu halista badanaa Al-Shabaab ayaa sidoo kale la xukumay maxaa lagu xukumay sidoo kale barnaamijkeena ayaa daawadayaal idinku gorfeen doona oo aan idinku qaadaan dhigi doona soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal daawada meel waliba aad joogto muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Faragan Baraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo ee commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markana daawade waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku hormarnay dagaalada ayaa sii xoogeystay oo sii karaar qaatay Mustafa Cagjarna waxa uu fasiraad ka bixiyay qorshaha xadgudubka ku ah Soomaaliya ee ay ku dhawaaqeen madaxweyne Mustafa Cagjar ayaana waxa uu tibaaxay qodobo kala gedisan waxa uuna fasiraadi ka bixiyay arrimo kala duwan oo ku saleysan dagaalkan soo cusboonaaday muddooyinkii la soo dhaafay arrimo kala duwan ayuuna carabka ku dhuftay Mustafa Cagjar waxa uu yiri ayay ka warsugayaan shacabka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inkastoo khudbadiisa ay daawadeen qaarkood madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida galbeed Mustafa Maxamed Umar Cagjar ayaa fasiraad ka bixiyay qorshe uu hore u sheegay in maamulkiisa uu damacsan yahay kaasi oo ahaa in ay sameynayaan ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaanka ismaamulka Soomaalida hadalkii hore ee Cagjar ayaa markaa indha kale lagu fiiriyo ahaa in maamulkiisa uu xadgudub dhuleed ka sameynayo gudaha Soomaaliya hase yeeshee waxa uu mar kale madaxweynuhu sheegay in qorshahaas aysan uga dan lahayn xadgudub balse kaliya ay uga gaashaamanayaan falalka cadowga iyo in ay gudaha u soo galaan deegaanadooda Soomaalinimada iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo ay ugu horeeyaan kuwa jamhuuriyadda cid naga jecel ma jirto dhiigayga iyo lafahayga hadii la shiido waxa laga helayaa Soomaalinimo ayuu yiri waxa uu hadalkiisa si raaciyay ma jirto dhul iyo xuduud aan cid ku haysana laakiin hadii ay Al-Shabaab weerarka soo qaadayaan iyada oo la arkayo cid wax ka qabanayso ayna jirin waa in aan ka hortagno sidoo kale waxa uu sheegay in sababta ku kalifaysa in ay aaga sameeyaan ay tahay in ay ka feejignaadaan dhagar dambe oo Al-Shabaab ay u soo maleegaan dowlad deegaanka Soomaalida galbeed Al-Shabaab ayaa dhawaan weerar qorsheysan ku qaaday deegaanada xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo markii dambe uu maamulka deegaanka uu sheegay in ay burburiyeen xubnihii ka soo gudbay xuduudda oo ay markaasiba qaarijiyeen Al-Shabaab ayaana la tibaaxaya in ay jab xoogan halkaasi kala noqdeen oo jab xoogani uu soo gaaray dagaalada ayaa waxay yihiin kuwa wali markaasiba sii soconaya waa kuma ururka ka dhisan Ethiopia isla markaana shaaciyay ama la shaaciyay in Al-Shabaab ay xiriir la leedahay dowladda federaalka Ethiopia ayaa bayaan cusub ka soo saartay dagaaladii cuslaa ee toddobaadkan ka dhacay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii ay weerar ku qaadeen xoog ka tirsan Al-Shabaab war-saxaafadeedkan ayaa waxa lagu sheegay in dagaalkii u dambeeyay ee ka dhacay dhanka Feerfeer khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab loogana dilay ilaa 85 xubnood sidoo kale Ethiopia ayaa shaaca ka qaaday
in sidoo kale dagaaladii ka dhacay gobolka Afdheer isaguna lagu dilay ilaa 209 ka tirsanaa dagaalyahanadii weerarka qaaday. dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in damaca ragga weerarka qaaday uu ahaa in ay u gudbaan deegaanka Ceelkari si ay uga sameystaan saldhigyo una degaan. qoraalkan ayay sidoo kale Itoobiya ku sheegtay in ujeedka Al-Shabaab uu ahaa in ay ku biiraan ururka Oromada ee Shin si ay u qalqalgeliyaan amniga guud ee deegaanka. Al-Shabaab damacoodu waxa uu ahaa in ay ka gudbaan deegaanka Ceelkari si ay u gaaraan dhulka joogiisu sareeyo ee ka bilowday halkaas isagu iskuna xira deegaanada Soomaalida iyo Oromada si ay qalqal u sameeyaan jabhadna halkaasi uga noqdaan iyagoo ku biiraya kooxda Shin ayaa lagu yiri warka markaasi bay soo saartay dowladda dhexe ee Itoobiya. ururka Shin oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada Oromada ayay dowladda Itoobiya u aqoonsan tahay urur argagixiso. inkastoo haatan la soo afjaray dagaaladii ka socday xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa haddana dowlad deegaanka Soomaalida waxay gashay xaalad adag kadib weerarkii cuslaa ee Al-Shabaab. dhanka kalena daawadayaal saaxiibayaal aynu isdul taagno Itoobiya ma ka tali doontaa Baydhabo iyo sidoo kaleba Beledweyne? waa su'aal ay isweydiinayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar Cagjar oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada xuduudka la leh gobolada Bakool iyo Hiiraan ayaaba markaasiba ku dhawaaqay in ay sameyn doonaan ka caagan kooxda Al-Shabaab oo ka baxsan xuduudka Ethiopia Security Buffer Zone. hadalkaas ayaa ka dhigan in ciidanka Ethiopia iyo kuwa Liu Police fariisimo ka sameysan doonaan gudaha Soomaaliya, taas oo loo fasirtay mid ka mid ah sababihii loo abaabulay weerarada Al-Shabaab ku qaaday Ethiopia oo falaqayaasha qaarkood sheegayaan in qorshaha duulaankaas ay wax ka ogeyd xukuumadda Abiy Ahmed. khubaro amni ayaa hadalka Cagjar ku macneeyay qeexidda ujeedka Addis Ababa ee dhul ballaarsiga kaas oo ay ku doonayso in ay ku xukunto aag ballaaran oo dhacay gobolada Hiiraan, Bay iyo Bakool si ay daaha gadaashiisa uga maamusho maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed si la mid ah sida Kenya majaraha ugu hayso Jubbaland. Kenya waxay Soomaaliya ku soo gashay in ay u socoto la dagaalanka Al-Shabaab iyo in ay gudaha Soomaaliya ka difaacayso Nairobi. ha yeeshee ujeedkeedu wuxuu ahaa in ay ka arrimiso xeebta Kismaayo waana dhacday. sidaas oo kale Itoobiya waxa ay doonaysaa in ay ka taliso Beledweyne iyo Baydhabo si ay gorgortan u geliso xukuumadda Muqdisho. 5 sano ee la soo dhaafay Addis Ababa ayaa ahayd qiblada siyaasadeed ee Soomaaliya, taasoo sababtay in ay yareyso faragelintii maamulada maadaama uu farmaajo ku jiray boorsada Abiy Ahmed. hadda Itoobiya waxa ay durbad dib u soo celisay dhaqamadii maamulkii Tigreegu caanka ku ahaa ee kala qaybinta ku qotomay. dhowaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Maxamed Dani ayaa tagay Addis Ababa halkaas oo uu kulamo kala duwan kula yeeshay hoggaanka dalkaas xilli ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu toddobaadkii hore ka cudur daartay safar uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku tagi lahaa caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa una socdaalay gobolka qowmiyadiisa Oromada. dowladda Soomaaliya weli wax jawaab ah kama bixin hadalka ka soo yeeray Cagjar ee ah in ay gudaha Soomaaliya ka difaaci doonaan deegaanadooda xilli ay xusid mudan tahay in ciidamada Liu Police ay hore u joogeen deegaano dhaca gobolada Hiiraan, Bay iyo Bakool oo ay ku jiraan kuwa ay dhowaan dagaaladu ka dhaceen ee ku yaala xuduudka. Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga in ka badan 4,000 oo askari kuwaas oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS, waxaana jira qayb kale oo aan ka tirsanayn howlgalka oo ku sugan gobolo kala duwan. labada dal ayaa wadaaga xuduud aad u dheer. dhulka uu ka taliyo Cagjar ayaana ah dhul Soomaaliyeed oo gumeystihii siiyay markaasiba Itoobiya. dagaaladu waa ay sii soconayaan ilaa iyo haddana dowladda Soomaaliya ma aysan cadeynin mowqifkeeda. ugu dambeyntii US iyo sidoo kaleba Turkiga waxa ay cambaarayeen weeraro dhawaan ka dhacay marka iyo sidoo kaleba Afgooye. dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaaraysay weeraradii dadka badan ay ku dhinteen ee Arbacadii ka kala dhacay magaalooyinka Marka iyo Afgooye oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose.
war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay in Ankara ay aad uga xun tahay sii socashada weerarada ay al-shabaab ka geysanayaan gudaha Soomaaliya xilli qarax ismiidaamin lagu dilay gudoomiyihii degmada warka ninkii lagu magacaabayo Waafo. Mareykanka ayaa dhankiisa cambaariyay weerarada isagoo xusay in uu sii wadi doono si dhow la shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya. Mareykanka iyo Turkiga labaduba waa daneeyayaal muhiim u ah hindisaha nabadda Soomaaliya waxayna caawiyaan ciidamada gaarka ee Danab iyo Gorgor siday u kala horeeyaan kuwaas oo ah ciidanka ugu tayada wanaagsan Soomaaliya. ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro Arbacadii ka dhacay magaalooyinka Marka iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose sida ay warbaahinta u sheegeen sargaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Gudoomiyihii degmada Marka Cabdilaahi Cali Axmed Waafo ayaa kamid ah dadka lagu dilay qaraxa ka dhacay Marka kaas oo ah ismiidaamin uu isku soo xiray qof naftiisa haliga mas'uuliyiin iyo dad kale oo shacab ah ayaa qaraxan ku geeriyooday. Marka oo 90 kiiloomitir u jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa magaalo weyn oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika. Weerarka ayaa ka dhacay agagaarka xarunta maamulka Marka sidoo kale ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay halka tiro kalena ku dhaawacantay qarax kale oo isla Arbacadii ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dadkaas dhibaatadu gaartay ayaa u badan shacab sida ay wararkuba sheegayaan. gudaana daawadayaal way naginta warkii kala socoteen madasha wararka tan iyo barnaamijkan kiisa kale inaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.